daraad gabaraa hadashay markaasay waxay tiri aniga haddaan dhinta geed ha lay saaro markaasay waxay tiri waxaan dardaarmaa dadka inaan la duugin xataa ani yaan lay duugin keligeed kuma ekaysan waxay kale tiri dadka in la duugo foolxumo waay wax xun waay in la deeyaanan amraaya waxaan dhihi lahaa joojiya aan leeyahay jahligeeda kuma ekaan inay gaftay ee nafsadeeda u gaftay murugaa horta haysa qofkaas waxaa dhici karta caqliyan amba cilmiyan dhibaato way haysataa shaki ma leh nafsiyan dhibaato nafsiya haysato geeri iyo waxay ka murgay geeri qofka ka murgaayo wuxuu u diyaar garoobi lahay waxa ka horeeya soomaha qabrigiisa u diyaar garoobi lahay murugta geerida ma hayse ciidda inay jirkeeda cuntay ka murugsantahay minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra horta ciidan waa tii laga abuuree gabar yahay waxaan leenahay cagaha dhulka dhig ciidda waa tii laga keenay ayadaana lagugu celinaa ayadaana laga soo saaraya meel kale horta ka walbahaarin taas dhimashaduna waa lama horaan kullu nafsin daa'iqatul mawt naf walba way dhimanaysaa sidaad dhimashada u og tahay u ogow ciidana inaysan ku huraynin amba dheecaankaaga ha ku daato amba cadkii lagaa cunay oo bahallada marka geedka lagu saaro kaala degay ku cuneen ayadoo saxaro ah dhulka ha ku soo dhigaane waa lagama maarmaan dhulkaad u dhammaanaysaa taasna xisaabta ku darso tan kale in laysduugo waa diin waxay tihi aniga diin waaye hadhow yaan layla soo ordin diin xagga dhig maya diinka soo qaba xagga la dhigi maayo nolosheennana kamaba baxee qofka inuu dhinto in la duugo waa waajib sharciya haddii la duugi waayo magaalo dadka joogo hadday duugi waayaan qof muslina amba qof dhintay insaan muxtarama dhintay hadday duugi waayaan way ku dambaabayaan inay jidkiis meydkiisa uu bannaanka yaalo way ku dambaabayaan sababta loo duugaayo waa laba sababood marna waa in meydka la ixtiraamayo oo waajib diineed la gudanayo ixtiraaman lilmeyd waa la karfanaa waxay tiri yaan garka leega xirxirin yaan lay karfaninay tiri gabadhaas waxay kale tiri yaan lay duugin waa waajib diineed in la karfano waa waajib diineed in la duugo oo godka dhinaca loo dhigo ma ujeeda waa la duugayaa qofkii marka diiday oo geed halay saara la tirina ilaahay wax saara ha u sahlo oo sabab lagu saarana allah waafajiyo laakiin annaga qof muslina geed ma saarayno ee waana duuganaynaa dhulkaana dhinaca u dhigaynaa duugista adduunyada way ka jiraan dad geedi isi saaro ilaa 7 nooc oo ka mida habka laysu duugaa dunida ka jirto marka oon sharci ahayn iyo hal nooc oo sharciya oo sideedaad oo ah in qofka la duugo la karfano la qaado janaaso lagu dukado qabriga la geeyo oo dadka muslimiinta ay qabaan iyo ahlu kitaabka qaarkiis ay duugaan sida yahuud iyo nasaarada 7 arrin ay diinta qabin maxaa ka mida in la gubo nafta waxaa tan koowaad waa xarqu juthatu lmutawaffa qofkii dhintay in meydkiisa la gubo sida hunduuska ma ku aragteen marka uu dhinto waa la qabaa dabkaa la saaraa waa la gamaariha dambastiisana webigaa lagu shubaa kaas waa qodob dadka aaminsan muslimiin ma aha qodobka labaadna addafnu fi samaa ay fii acaali ljibaal in buur la saaro oo qofka buur dusheeda lagu dayo qodobkaasna waxaa qaba nimanka la yidhaha tebit shiinaha iyo hindiya dhulka u dhexeeyo oo himilaaya buuraha la yidhaha silsiladda ay dhex marto ku nool qofka ka dhinto waa la soo qaadaa maalmaa buurta la saaraa asagoo lasoo duuduubo ubaxyo laga daba sido marka buurta la saaro waxaa la sameeyaa waa la googoynaa meydkiisa kala waaweyn waxay wataan maxaa lahaa seef waaweyn waa la xubnaynaa bahalla shimbiraa loo tuuraa shimbirahaasaa cunaayo duugistaasna qolaa qabto fii acaali ljibaal duugidda saddexaadna waa aklu ljusatu lmutawaffa in la cunaba marka u dhintay cidda ninka ka dhintay in la soo dhigo oo meydkiisa la kawaansado oo la kalaankasho ciddu ay ku baanato waxaana isticmaali jiray dadka degan latin america iyo brazil xilliyada abaaraha soo maraan iyo caadi ahaanba way cunaan arrintaasna arrin jirta waaye qofka samaynaysa muslim ma ah waa mushrik sidoo kale waxaa jiro in meydkii markuu dhinto la qaado oo baktigiisa geed la saaro amba boholo la dhex geeyo markay shimbiraha cunaan lafihiisiyaa la soo ceshanaa 45 beri kadib brazil iyo dhulka latin america dad degan lafihii marka la soo ceshado lafaha waa la jajabsanaa waa la maraqaysanaa maraqa laga cabaaya qofka ajir iyo jannu ku helayahay aaminsan yihiin qolana waa saas qolada kalena waa addafnu cala ashajara gabadhaas dalabkeedu waa in meydka geedaha la saaro waxay tiri aniga dhul nadiifa oo carfa dhulkeenna carfaayo meyd la saari maayo
oo dhulka Soomaaliyeed meed la saari maayo waa la qaadaa qofka muslimna waa duugayna qofkan muslim ahayn ilaahayba noogama dilo dhulkeena banaanka Allah naga geeyo ma ujeedo in meedka geed la saaro way jirtaa waxa qaba Australia gabadhaas ticket goosa Australia aadan leena meedkaaga ayaga u geyso marka dhimata Soomaaliya insha Allah lagu keeni maayo hadad muslim ahayn hadad muslim tahayna tub ila Allah oo ka toobad keen muslimka duugista waa diin sida salaada ay cibaado u tahay duugistana waa cibaado sida tawxiidku cibaado u yahay oo soonka cibaado u yahay waxay tiri qofkii duugto ilaahan u heesta qofkii keeno mid kale foolxumada ka dhalanayso hooyadeed iyo aabaheed hadii la soo qaado geed gobolkooda ku yaala la saar murugada u dhimanayso hooyadeed ma malayn karto hooyadeed ma ku raali noqon lahayd gabadhaada meydkeeda geedka la saaray baqtigeedii hilbaha shimbiraha cunayaan oo dheecaankeedii diririqay fiirso hooyadu raali ma ku noqon lahayd waxay rabtaa markay dhimato in dhimashadeeda dad kale murugo u dhintaanay rabtaa waa qof aan naxayni hadda ka hor laba islaamood la isla qabo islaan dhimatay markaas waxay tiri aniga markaan dhinto waxay tiri islaanta kale hala soo waco yaan loo sheegin inaan dhinto markaas waxay sameysay ayadoo suuradii waxay dirtay mahiga yaan la shalaynin indhahayga yaan la laabin afkayga yaan la isku qaban gabadhaan hadda waxay tiri afkayga yaan la isku qaban waxay tiri anigoo saas u aala islaanta kale hala soo gasho markay timaadana marada layga feedaha ay aragto markaas islaantii oo kagtay oo afki iyo indhihii kala tageen ay u soo gashay naxdina u dhimatay intaas ka rabtay gabadhaan ma waxay rabtaa say ayada u dhimatay inay dad kala salfato may rabtaa markay dhahaysayaan lay tabantaabino lay karfanin oo geed halay saar masaasay ka rabtaa subhanallah haddaad muslim tahay ilaahay u toobadkeen duugida kale adduunka ka jirta waxaa ka mid ah sanduuq in lagu xiro oo buur dusheeda sanduuq laga soo laadlaadiyo Indonesia qabaa'il degan oo gaala aha qabo documentary laga soo sameeyay hore oo fiirsaday buuraha la saara ayadoo taabuud ku jirto waxa kale oo jirto in meydka in la gubo dambastiisa dayman oo kale wax lagu daro oo lafihiisi laga dhiga sida bir aan dib u gubanayn oo kale kadibna faraantiga faskiisa iyo katiinada faskeeda laga dhigto oo inta lagu soo xirtana way jirtaa marka gabadha rabta in geedaha la saaro Australia ka dhac Soomaaliya geeda la isku ma saar dhinaca dhulka loo soo dhigaa ciidana waa lama huraan ayadana la ka abuuray marka saas raali ku noqo haday aqliga la adahay gabadhaas hala daaweeyo haday diin la'aan haysana waxaan leenahay cilmi baro ilaahay ka cabso duugista waa cibaado hadaysan diin ahaan u diidantahay islaamka isqarinay subhanallah waati ilaahayda haday diidma islaamka ka tahayna waxaan leenahay anagu bariyan kaanahay kuna geedna ku saaramayna hanoo imaanin meel geedaha lagu saaro aad